laba qof buu nafta ka dhacay soo ma عنو كبر كنت كبطي قاعد سوق عاطي لبنا في أدونك كمسافرين أبي أقولين أو ماي جاد إني سكر واحد بدر قاتل أو الماء هو يدي إسساري صدن سنة حبس له حكمي أي نين لبدي يسلك بنانك لما راي كدور تندي إلهي ذي كويت أنا وبما ولا كان أفكر دي ما تعال لك سويك تواب معي تبلا تنكب في علمك كدين مش هم دول العيان دول ما كويسنا حتى ورنها وين كامريكا أو كاركيس أشيل علم كويدين gabadhaas waa fanaanad kadibna wiilashii Soomaalida oo dhan baa ka helay baa leeyahay mana sida social media dhax soo gabadhii rabta inay rag caydo lagu hayeysidata ay laba qof dilay mana laba qof u dilmeen kulay laba qof uu nafta ka qaaday labada qof ma soo laabanayaan saasay ku dhinteen mana way geeriyoodeen waxa si sharaf leh idinka codsanaya muuqaalka in la sheer gareeyo si gabdhaha Soomaaliyeed guri ha joogto garooba ahaato gabar ha ahaato uu u gaaro oo lugahayga ay iidayaan قبل نفر بدن أيا وحي كليهن الله ما عندهاس أي no dead eyes هي الله ما ينه dead eyes kuwa sida aan ugu laafyoonayo oo ugu xaragoonayo oo adduunka ugu laastay kuwa maanday qaata laakiin kuwa hadda wadaan waa photoshop oo wallahi warnaha wiilka Ameerika oo kaarkiisa shiil cilmi ku arkoydin warda Soomaali warabla Soomaali oo kiyaale wada rabaan miya dhakhtarka ma u wada geerin oo kiyaale wada rabaan ma tifid way nooyam garanaysa mana horta intaan bilaabin kan gabdhaha mid waxa jira wiilasha ah oo chance u helni una ka hadlo anoo ka hadla isla iga wasbaxsatay waxa jirtay intaan gabdhaha ka hadlin iga yara yaabisay سوق قدبين أصحابتي إذا ما أنت وحي كبلاوت نادى القلعة أنا بجعل محايا اللي قبلي بلنتي إيه قبحين وحنا يرجع قبلي عربتي إذا كراعينه أنا إسرع أنا وفان أنا جعلاد مركزي وحيب يراعين بقبلي نصت السنة حبس له حكومي إندي سقروح واي كلها ما يعني إندي بالمي وجي مسديك دلان قبا إندي سقروح بدن واي لبعتني أفرجير واي تميس خطر واي قال أنا تمين مع كل برما لوق شوي رجع معي تمين الله إنها مقل ما إن حبس قلان الله إنها مقل ما إن الحكم أصلا لبنا في دلوا يا إنه أكوانا أو حتى مكلال أزودرين أو أدوات نفرسين وكذا ما أنت فيرنين يا ما أنتوا أروع نفرسنا لكن يديش ولا فيريه تو أي ولف سمين بجرت واحد جرت كبر أنا قرني ماشي توسوق سوتشيدو وحنا مالنا السودان تاي صوتوا سمتون لي أنا قرني وحنا كودا مالنا أنت وطن كلامي كنت المعبود يدي دراي لكن السودان بوم مالنا يا ها تو كذا لبعض الدنيا يسفي عنه فيريه مركات نفرسنن الدنيا يسفي عنه فيريه وراه أمانة الله أمانة رسول أنا قال ماذا حوضنا عليه أنا قصة لسان ميدان أجيد إنضان وليه ما أنت وقفرسنا يا إيه قبلنا قبل أسوأ فنانة كدمنا wiilashii Soomaalida oo dhan baa ka helay baa leeyahay mana sida social media dhaxso bal eega warbal dhabankayga eega warbal timahayga eega warbal joogayga iyo jamaalkayga eega maxaa idin ku dhacay wiilka ka isagiiba ma inuu idin ku dul go'aan rabtaan waaba aragtaan bay waa la fasax u solan gabadhii muuqaalkayga soo gaaro war maanday lugahayga iida kuwa kale ku dagaal tag ragga Soomaaliyeed ku cay laakiin lugahayga iida I feel it waa dareemaya dibta ay u sameeyeen waa dareemaya dib kale igu sameeynayo waa dareemaya wallahi dibteegaya anu maba sii jeclaa in kasta nimco meel fadhida tahay dana inda la raacay laakiin magaceeda iguma dhaashana ta minna ilaawina inta social media ku jirta waa 1% oo malaha Soomaalida ah malada aragtid waxay Soomaalida dhan wada jeclaan inta maalidu ma Soomaalida baa wada jeclaatay inta social media ku jirta baa jeclaatay soo haddaba in badan meeshan dumarka waa ugu hiiliyay laakiin aniga idinka maanta waa gabadh qurux badan oo malaha tan wiilashu ay aad u jeclaadeen gabdhaha Soomaaliyeed aad u la yaabana waa ay lahaayeen almaha gabadha saaw eego suuq xoolaha ta koobi content gabdhood saaw eeg baa la helay koobi content gabdhood ayaa suuq xoolaha laga helayaa iyaguna
muraayad dhexdeeda gabadha ka arkay bi kulay waa jecel lahay waa ka helnay daba anigu waxan waxa igu soo gaari jirtay ama aan maqli jiray dumarka way u naxaan ilaan markii ay imaado nin indhahooda soo qabanayaan dumar ma u naxaan iyo qof mana waa wax yaabaha dee lala yaabay social media ku jira maan fahmaysaa haddaad imika su-aal laanta hawada tiktok kayrasa gaba saas og laanta hawada qofkaan garin waxa waxaan kusoo barbaraano haddaad tagtid sheekh nuciise waa meel iyaduna jijigan ku taala waa ka helaysaa haddaad hargeysa tagtid kuwaas iyo kuwa qurux badan baa helaysaa haddaad muqdisho tagtid kuwaas iyo ku barashada af soomaaliga kuwa iyo kuwa ka qurux badan baa helaysaa haddaad gaarisa tagtid sidoo kale haddaad macnaha meel ay soomaali degta aad tagtid laabadka ugu horeed ka laabatid baad gabadhaas aad leedihiin waan jecel lahaa iyo tuka qurux badan ba ka helaysiin ma fahmaysaa laakiin waxaan fahmi leeyahay gabadh fanaanadu halkaa joogto oo microphone haysato waan jecelahay inaad tiraado waa wax lala yaabo haddaba taa ka ilmaamno malaha wiilashii garanaba iyagu waxbaa xaggan ka heri jiraysiin malaha xagga maskaxda sababtoo hadee marka iyo qofka ay ku dhacday wiilkan yar tiktoka iyo social media meel kasta ayuu haystaa haddaba inta badan dumarka ayaa wiilkan waxa ay leeyihiin totally ba wiilkan uma qalmo kod markii lacag la'aan iska dhacday ama aalad gabadh ay istaagin xayawaanka kula qurux badnaan marka lama yaabay ama fahmaysaa hoosoo noqon haddaba gabdhaha waxaa jira arrintan si fiican ugama warhayo waxaan isku dayaa inaan fiido daawada wiil soomaaliga soo sameeyey oo maanaha dee aan ka fahano horta waxa dhacay iyo suu ninkani dadka u dilay waxaas waxaa jira wiil maxkamad la saaray waxaan garan leeyahay inuu wuxuu gaari ahaa uu ku dilay iyo inuu si toos u dilay adu dadka qaar accident weeyaan bay leeyihiin dadka qaarna waxyaaba kale alla uma qalmo alla wiilkan quruxda badan alla uma qalmo xabsi daa'in alla uma qalmo waxaa soo xariga alla indhihiisa quruxda badan haye warka isiiya welibana dumarka aan laba u kala qaado dumarkeena Soomaaliyeed ee wiilkii gab iyo galax ku noqday laba u kala qaado haddaba qofkan ay gab iyo galax ku noqdeen waa gacan ku dhigle israaciyay hooyo iyo gabadheeda yar sheegayaan taas si fiican uma sii garanayo wiilkan baan malaha ka daawan karnaa oo malaha ka ogaanina waxa uu dadkan ku dilay ninkaasi laakiin nin baa laba nafood u qaaday lama hal maaha weliba mid waxa weeye qof yaroo imika soo badbaadiyay doo mustaqbal dhan lahaa haddaba in badan meeshaan dumarka waa ugu hiiliyey laakiin aniga idinka maanta qurux badan yahay weliba gabdhaha dee ku noqday war miyaydan u jeedin indhaheena wariyaa anu gabdha Mareykan oo saaloo arkay gabdha Arab oo saaloo arkay gabdhi Soomaaliya wax ka noqdeen qaar ayaan oo gabdho anay xalay iyo masaxan maxay tiri hortiisa adaa lagu xiro maxaan ma fool xumayn waa kana ujeeda garkii gabdhaha markay arkaan iskaga baashaali jireen iska salaaxi jireen waa leeyahay ujeedido faruur oo saddex qof lagu baashiyen kara leeyahay waa kaday timaa fiir la ilaaha illa allah waraadana muruq fiir ayaan dan zaidan ahay ay xabadku waa kasto dufaan ku leeyahay alaabtii Mr. Bo يا شن قبل هذا المرة صلاحي كرا مركي قبري محي لذا محلها كاميرس هيرس كاميرس ما بقف في نفطة كده عزوها سناب شات oh man I got this shit man I got this shit أكاسات تمرك هذا أمانة الله أمانة ده من الدار راح أضحك سكرين ويركن قرح بدنيا والله لا إن تاسوس لا تني أفر سنة لو حكومة شركة إن لا تني أفر أنا قصد محنك قبا anigu u naximaayo hadii xitaa oo marka ku foosh xulay inuu badan waliba inagu in jeelka la geeyayaan miyaa ku qurux badan leeyahay ma wallahi wiilka qurux badan yahay yar timi jirsan iyo waxaan ku leeyahay idaan ku siyaa baakar oo kala jeelka loo gudal gelin leeyahay ma waxyaabo ay jaabiye la yahay waxa soo kala ya ma iskiliyay uma qalmeen laatan iyo afar sano jeel ku jiro mustaqbal diltooso lagu xukumo waa wiil yar uu da'yar yahay inuu xabsi galo iyo waxa soo dhiba uma wanaagsaneen laakiin maadaama laba naf uu adduunka ka musaafuriyay haddii asaga naftirkiisa xabsi daa'im lagu xukumo I don't give a shit sababta maxaa yeelay walaa tamshi fil ardi marahan gaari aan iska soo qaadanaa Majib official mo is the next video. Let's go.